بسم الله الرحمن الرحيم تفسير كقرآن أو لغة الصومالية سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مقع إله أيان كب الله بينا نحريس قود يمدقار أبا نحريسته. الحمد لله رب العالمين مهد الله وإسكاله برباريها عالمك. الرحمن الرحيم نحريس قود يمدقار أبا نحريسته. مالك يوم الدين بقرك مالنت أبا المرنت قيامها. إياك نعبد وإياك نستعين أديك أمبان كعابدينا أديك أمبان ككالما ويديسنينا إلهو. اهدنا الصراط المستقيم نجو هنوني جدك توصن حقه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جدك كوي النعميسي إذن أعرون وأذن لمنين. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم مقع الله أيام كب الله بينا نحريس قود يمد قارب النحريسته. قل أعوذ برب الناس waxaad dhahdaa nabi allow waxaan magan galay ilaaha dadka barbaariya ملك الناس boqorka dadka إله الناس ilaaha dadka من شر الوسواس الخناس sharka iyo xumaanta kan waswaasiya ee qarsoon الذي يوسوس في صدور الناس ee waswaasiya laabaha iyo qulubta dadka من الجنة والناس kuwaas wax waswaasiya oo jinni iyo insiba. suuratul falaq. بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. قل أعوذ برب الفلق waxaad dhahdaa nebiyow waxaan ka magan galay allaha subaxa abuuray من شر ما خلق wixii shar leh sharkiisa ومن شر غاسق إذا وقب iyo habeenka sharkiisa markuu madoobaado ومن شر النفاثات في العقد iyo sharka sixirowga wax ku tufa guntimaha ومن شر حاسد إذا حسد iyo sharka xaasidka waxasda. suuratul ikhlaas. بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. قل هو الله أحد waxaad dhahdaa nebiyow allah waa keli wehelna ma leh الله الصمد waana sayid deeqtoon لم يلد ولم يولد allah wax ma dhalin isna lama dhalin ولم يكن له كفوا أحد wax la mid ahna ma jiro. suuratul masad. بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. تبت يدا أبي لهب وتب waxaa khasaaray gacmihii abulahab oo halaagmaya ما أغنى عنه ماله وما كسب waxna uma tarin xoolihiisii iyo wuxuu kasbaday سيصلى نارا ذات لهب wuxuuna geli doonaa naar olol leh وامرأته حمالة الحطب xaaskiisii qoryaha xambaari jirtayna waxay geli doontaa naar في جيدها حبل من
مسد luqunteedana waxaa la yeeli doonaa xarig liif ka samaysan suuratu nasr بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista إذا جاء نصر الله والفتح markuu yimaado gargaarkii allah iyo furashada maka ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا oo aad aragtid dadkoo diinta allah u soo gelaya kooxo فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا u tasbiixso allah adoo ku mahadinayo dembi dhaafna weydiiso ileen waa dembi dhaaf badane suuratu lkaafiruun بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista قل يا أيها الكافرون waxaad dhahdaa gaalooy لا أعبد ما تعبدون ma caabudayo waxaad caabudaysaan ولا أنتم عابدون ما أعبد idinkana ma caabudaysaan allaha aan caabudayo ولا أنا عابد ما عبدتم mana caabudin waxaad caabuddeen ولا أنتم عابدون ما أعبد idinkuna hadda ma caabudaysaan allaha aan caabudayo لكم دينكم ولي دين idinkana diintiinnaad leedihiin anna diintaydaan leeyahay suuratu kawthar بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista إنا أعطيناك الكوثر annagaa ku siinay nebi allow waadi janno iyo khayr badan فصل لربك وانحر ee u tuko allahaas dartii waxna u gowrac إن شانئك هو الأبتر ruuxii ku necebna waa mid ciribbeelay suuratu lmaacuun بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah yaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista أرأيت الذي يكذب بالدين ka warrama kan beeninaya abaalmarinta qiyaamada فذلك الذي يدع اليتيم kaasoo xooga agoonta xaqeeda ولا يحض على طعام المسكين aan kuna boorinayn quudinta miskiinka فويل للمصلين waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukada waa munaafiqiinta الذين هم عن صلاتهم ساهون ee haddana halmaansan salaadooda الذين هم يراءون dadkana istustusiya ويمنعون الماعون una diida alaabta la isugu kaalmeeyo suuratu quraysh بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista لإيلاف قريش caadaysigii qureysheed إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ay ka caada yeesheen safarka xagaaga iyo jilaalka darteed فليعبدوا رب هذا البيت ha u caabudeen allaha beydkan kacbada الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف kaas oo ka quudiyey gaajo kana aamin geliyey cabsi suuratulfiil بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ma og tahay sida allah ku falay asxaabtii maroodiga ألم يجعل كيدهم في تضليل miyaan allah ka yeelin
dhagartoodii wax dhumay وأرسل عليهم طيرا أبابيل oosan ku dirin korkooda shimbiro kooxa ah ترميهم بحجارة من سجيل kuna tuurayo dhagaxyo la kululeeyay فجعلهم كعصف مأكول markaasuu allah ka yeelay ballad daaqay sidiisii suuratul humaz بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista ويل لكل همزة لمزة halaag wuxuu u sugnaaday xanlow wax ceebiya oo dhan الذي جمع مالا وعدده kaas oo xoolaha kulmiya tiriya xaqna aan ka bixin يحسب أن ماله أخلده ma wuxuu u malaynayaa in xoolihiisu ay waarinayaan كلا لينبذن في الحطمة saas ma aha ee waxaa lagu tuuri doonaa naarta xutama وما أدراك ما الحطمة maxaad ka taqaanaa xutama نار الله الموقدة waa naarta allah ee la huriyey التي تطلع على الأفئدة taasoo gubaysana quluubta kulayl dartii إنها عليهم مؤصدة waana lagu dabooli naartaas gaalada في عمد ممددة tiirar la taagay yayna ku dhex ahaan doonaan suuratul casr بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista والعصر allah wuxuu ku dhaartay wakhtiga casarka ah إن الإنسان لفي خسر insaanka dhammaantii khasaaruu ku sugan yahay إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر marka laga reebo kuwa rumeeyey xaqa ee camal fiican fala isuna dardaarma xaqa isuna dardaarma samirka suuratu takaathur بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista ألهاكم التكاثر waxa idin shuqliyey dadow wax badshasho iyo isufaan حتى زرتم المقابر intaad xabaalaha ka tagtaan ama dhimataan كلا سوف تعلمون saas ma aha ee waad ogaan doontaan ثم كلا سوف تعلمون haddana saas ma ahee waad ogaan doontaan كلا لو تعلمون علم اليقين haddaad dhab ahaan wax u og tihiin waad dayn lahaydeen xumaanta لترون الجحيم dhab ahaan baad u arkaysaan naarta jaxiima ثم لترونها عين اليقين kadibna waxaad u arkaysaan naarta si yaqiin ah ثم لتسألن يومئذ عن النعيم waxaana laydin weydiin doonaa maalintaas nicmadii suuratul qaarica بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista القارعة qaaricada midda qalbiyada garaacda ما القارعة qaarica maxay tahay وما أدراك ما القارعة maxaadse ka taqaanaa qaarico يوم يكون الناس كالفراش المبثوث waa maalinta dadku noqonayo sida baalaley وتكون الجبال كالعهن المنفوش buuruhuna ay noqonayaan sida suuf kala firdhay فأما من ثقلت موازينه ruuxii miisaankiisa fiican u cuslaado فهو في عيشة راضية wuxuu ku noolaan nolol raalli ah وأما
فأما من خفت موازينه ruuxii uu fududaado miisaankiisa fiican فأمه هاوية hooyadii waa naarta haawiya وما أدراك ما هي maxaad ka taqaanaa haawiya نار حامية waa naar kulayl daran suuratu alcaadiyaat بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista والعاديات ضبحا waxaan ku dhaartay fardaha orda ayagoo qaylinaya فالموريات قدحا iyo kuwa dabka qoobkooda ku ifiya فالمغيرات صبحا iyo kuwa cadowga weerara subaxdii فأثرن به نقعا ee boorka kiciya فوسطن به جمعا cadowgana dhex gala إن الإنسان لربه لكنود ee dadku allahood waa diideen وإنه على ذلك لشهيد arrintaasna dadku wuu og yahay وإنه لحب الخير لشديد dadkuna xoolo jacaylka waa ku daran yahay أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور miyuusan ogayn marka xabaalaha waxa ku jira la soo bixiyo وحصل ما في الصدور laabaha waxa ku qarsoonna la muujiyo إن ربهم بهم يومئذ لخبير in rabbigood maalintaas u ogaal badan yahay suuratu zalzala بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista إذا زلزلت الأرض زلزالها marka dhulka la gilgilo وأخرجت الأرض أثقالها dhulkuna soo bixiyo culayskiisii wixii ku aasnaa وقال الإنسان ما لها dadkuna gaalada dhahaan maxay leedahay يومئذ تحدث أخبارها maalintaas waxay ka sheekaynaysaa warkeeda بأن ربك أوحى لها maxaa yeelay rabbigaabaa u waxyooday يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم maalintaas dadku way soo bixi ayagoo kala tagsan xagga diinta iyo camalkaba si ay u arkaan camalkoodii فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kii wax yar oo shar ah fala wuu arki suuratu lbayina بسم الله الرحمن الرحيم magaca allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ma aha kuwii gaaloobay ee ahaa ahlu kitaabka yuhuud iyo nasaara iyo gaaladii kuwa ka taga xumaanta intuu uga yimaado wax cad xujo ah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة oo ah rasuul allah oo akhrinayo kutub daahir ah فيها كتب قيمة oo xukun fiicani ku yaallo وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة mana kala tegin gaalada ahlu kitaabka ah intuu uga yimaado xaq cad xasad dartii وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة dadkana waxaan alla caabudid ahayn lama farin ayagoo u kala yeelaya allah diinta oo toosan salaadana oogaya sakadana bixinaya
sidaasina waa diinta toosan. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. kuwa gaaloobay oo ahlu kitaabka ah iyo gaaladii waxay geli doonaan naarta jahannama ayna ku waari dhexdeeda. kuwaasina waa kuwa ugu sharta badan khalqiga. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. kuwa sarumeeyay xaqa camal fiicanna falay kuwaasi waa kuwa ugu khayr badan khalqiga. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. abaalkooda ay Allah agtiisa ku leeyihiin waa jannooyinka nagaadida gudaheedana ay qulqulayaan wabiyaal ayna ku waari dhexdeeda weligood. Allah waa ka raali noqday iyagana way ka raali noqdeen. arrintaasna waxay u sugnaatay ruuxii Allah dhab uga baqa.